kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii xidhiirkaha ee ku saabsanaa taariikhda Soomaalida. barnaamijkana waxa weeyaan kii 14aad. toddobaadkii hore waxa dhagaystayaal aanu idin maqashinay sidii Soomaalidu ay taageerada uga weyday dawladihii awoodda lahaa xagga militariga marka la eego reer galbeedka iyo reer bariga ahaa dagaalkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya sanadii 1977 ilaa 1978 maadaama Soomaalidu taageero haddaba ay ka weyday reer bariga iyo reer galbeedkii labadoodaba sababtuna ahayd iyadoo loo arkay Soomaaliya in dagaal gardarro ay ku qaaday dalka Itoobiya. waxa markaasi la isweydiin karaa dhagaystayaal xagee ayaa Soomaaliya looga heliyay ama taageero ay ka heshay. General Maxamed Cali Samatar oo isagu markaasi hogaaminaya dagaalkaasi ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray dhinaca Soomaalida markii arrintaasi aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay wallahi duunka carbeed siduu u dhan yahay ama hiil ama hoo baan ku haysanay mucaawino caskariya ama isbarbartaag siyaasadeed ayaan adduunka carbeed oo dhan ka haysanay. waa tahay haddii laga reebo cadan iyo Liibiya oo markii dambe iyada lafsadeeda dhankaas ku biirtay. maxaa ugu badnaa marka taageeradan siinay ma lacag bay ahayd ma hub bay ahayd yaa ugu xoog badnaa marka deeqda la bixinayay dagaalka la siinayay dhinaca adduunka carabta marka adeegto? waxaan oran karaa Sacuudiga ugu roonaayo lacag buu bixinayay. habbixiye annaga lacag cadaan inaan ka qaadano ma baahneen hub baan u baahneen marka hubka aan soo iibsanayno meelaha qaarkood hubkaas lacagtooda asaga bixinay Sacuudiga bixinay. مثل dawladaha qaar caraba baan hub ka soo qaadanay hubkii lacag bay rabeen lacagtii Sacuudiga bixiyay. Yurubta kale waxbaan ka soo qaadanay ama aan dhaho suuq aanan markaa rasmi ahayn maxaa yeelay waxaan saarnaa embargo markii arrimaha noocaas oo kale ay jiraan waa inaad xal heshaa iskama fadhin kare markii dagaal uu ku haysto waa inaad xal heshaa. adduunkana suuqyo badan oo maaragtay bari iyo galbeedba leh oo hubka lagu kala iibsado oo dariiq aanan caadi ahayn loogu kala iibsado ayaa badan. marka sidaasaan ku soo iibsan jiray. suuqa ugu xooga badnaa ee General Samatar weligaa wax ka iibsan jireen xagee buu ahaa? wallahi noocyo badan bay lahaayeen bariga haba u badnaado Bulgaria iyo Czechoslovakia iyo haba u badnaadaan laakiin haddana xagga reer galbeedka lafsadiisa waa ka helaynay. waxaa jira niman dulaali ah adduunka buuxa weliba reer galbeedka dalalkan la yiraaho dhexdhexaad weeye sida Switzerland oo kale iyo dad waxaa jira ku takhasusay arrimahaas oo maaragtay xiriiro badan leh oo hubka ka beec mishtaro oo yaqaano oo maaragtay sida loo galgalo meelaha iyo sida looga soo saaro intaba yaqaan. marka ma sahlano arrintaas marka hub aad ku raadinayso dariiq aan sharci ahayn. sida haddaba dhegaystayaal laga yaabo in qaarkiin aad ka warqabtaan dalkii midowga Soviyeeti la odhan jiray muddo dheer ayuu Soomaaliya ka taageerayay dhinacyo badan oo ciidamadu ay ka mid yihiin taasi oo ka horreysay xilligii Soomaaliya taladeeda ay la wareegeen ciidamadu. intii ka dambaysayna kumanaan khubara Ruush ah oo dhinac walba leh ayaa iyagu joogay waddanka Soomaaliya. waxaa markaasi la isweydiin karaa dagaalka Soomaaliya ay ku qaaday Itoobiya Ruushkii marna ma tuhmay hiiga dagaal ee Soomaaliya ku jiray. General Maxamed Cali Samatar oo weliba ka mid ahaa raggii golihii sare ee kacaanka ee laga tuhunsanaa inay aad isugu dhawaayeen midowgii Soviyeeti markii aanu arrintaasi wax ka weydiinay waxa uu yidhi haddii maya aan ku dhaho been baan sheegaya maxaa yeelay nimanka aad baan maaragtay isugu xirxireen aad bay waxyaalaha naga ula socon kareen dad maaragtay sophisticated oo aad mukhaabaraadkooda iyo informationkooda iyo waxoodaba aad u dhisan yihiinna waa yihiin. marka ma ayan tuhmin kuma dhihi karo waa tuhmeen
inkastoo annaga aan ku dadaalnay inaan ka qarino. ma jirta marna inay idinkala hadleen matalan tusaalahaan waxaad ka soo qaadaa sida aan u maqlay matalan wafdi adigu aad hogaamineysay 1976 oo xisbiga iyo markaas saraakiil ciidamada ka koobnaa oo waddanka midowga Soviet tagay in iyada lafaanteeda laydinla soo qaaday oo tuhunkoodii ay caddeeyeen dalkii midowga Soviet loo oran jiray ma jirta berigaas taas? maya ma jirin sheekooyinkaas wax jira ma annaga waxa aan midowga Soviet ka helaynay ama ka qaadanayna wuxuu ahaa qorshe maaragtay sanawi oo la isla yaqaano la derso oo la isla ogolaado oo wax improvisation lagu samaynayo ma uusan ahayn. waa tahay mayan ahayn waxaas ay ugu soo dhacay maanta berri waan kula ordayaa ma ahayn. waxay ahayd مثل سند كدنب waxa la filayo sanad ka hor baa la sii qorsheynayay. John Samatar inkastoo haddaba uu sheegay inay dhici karto midowga Soviet in laga yaabo in tuhunu ka galay hiyigii dagaal ee Soomaaliya ku jiray hase yeeshee Soomaalida aanay u sheegin. laakiin Cumar Salaad cilmi oo ka mid ahaan jiray golihii dhexe xisbiga hantiwadaaga kacanka Soomaaliyeed isla markaasna sida uu sheegay ka mid ahaa dhowr nin oo iyagu diiday dagaalkaasi 1977 in lagu qaado dalka Ethiopia markii xisbigu kulan uu ka yeeshay waxa isagu qaba in ruushka Soomaaliya uu cadeeyay tuhunka uu ka qabay hiyigooda dagaal oo ah Ethiopia inay damacsan yihiin inay ku duulaan muddo boode sanad ka hor ahayd waqtiga dagaalkaasi oo dhacay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa 76 markii la dhisay xisbiga hantiwadaaga gacanka Soomaaliya oran jiray oo dalka markii dambe maamulhayay ayaa wafdi waxa loo diray wafdi xisbi iyo military waxa loo diray raashka Moscow loo diray wafdigaas waxa hogaaminayay oo dhanka ciidamadana ka socday wafdigana madaxu ahaa General Maxamed Ali Sabantar wasiirka difaaca iyo madaxda ku-xigeenaha laba korneyl baa la socotay xagga xisbigana waxaan ahayn 3 nin baan ahayn Axmed Maxamed Maxamuud Laxwas lagu nasi jiray oo golaha sare ka tirsanaa Cabdiraxmaan Caydiin oran jiray arday sabab ku dhintay iyo aniga 3 xisbigana ka soconay marka waxa barnaamijku ahaa inaanu xisbiga dalka ruushka maamulo iyo sida ruushka loo maamulo hantiwadaaga aan soo barano dawladana aan xisbiga waxa la soo galno marka waxa nala qaabilay oo nala shiray golihii siyaasadda ee xisbiga dalka ruushka xukumaha golihii siyaasadda oo 18 meelahaas ah dawladda ruushka wixii madaxda u ahaa ugu sarreeyay qof ka maqnay wasiirka gaashaandhiga fadhiya waxa fadhiya wasaarooyinka dadka iyo Bloodberg meesha xukumay barnaamij dheer buu soo jeesay Ali Samantar wuxuu yiri waxaan u baahanahay taageero iyo hub iyo adigu arrimo xisbi waxaankaas doodii markay dheeraatay waxa la yiri waxaan tuunsanay muddo dheer inaad Ethiopia weeraraysaan waad naga shaafiseen haddana waa idin tuunsanay maanta waxaan aad dalbanaysaan oo hubka aad dalbanaysaan shaki buu sii gali waana sanadkii weyn waxa weeye waa bishii Agoosto 76 markaasuu warqad dheer u soo bixiyo yiri warqadana madaxweyne Maxamed Siyaad baa soo dhiibay hadii ilaahay ku roon yahay wuxuu idin ka ballan qaadayaa inaan dagaal jirin waxba ka walwalinina ayuu leeyahay aniguna afkaan maanta idin ka sii cadeynaya walwalka iska saar waxa la yiri hubkaana dagaal u doonamayno maxaa se hubka kan aad u rabtaan difaaca oo yaa iska difaacaysaan waxa weeye dalalkan reer galbeedka ah hantiwadaaga diidan baan ugu soo duulahaya yaan ka baqaynaa waxa la yiri annaga difaacaad xagga idinka difaacayna oo badda iyo joogna meel walba iyo cirkaba dalalka dariskana waa ka xoog badan ciidamada ka xoog badan marka anagu dagaal inaad qaadaysaan baan u aragnaa tan kale hubka aad weydiisanaysaa waxa ku jira gawaarida lagu xambaaro taangiyada gawaarida taangiyada lagu xambaarana waxa weeye dagaal ba hayaan loo galahayo oo meel dheer dagaal laga galahayo taangiyada xambaarana ilaa goobta dagaalka marka taasuna waa nooc cadeynaysa ala kulli xal dood dheer ka bacdi kuwaas taangiyada jida laga reebay wixii uu dalbaday hub iyo gaadiid waa la siiyay qalab
kuwaasuma laga reebay codsigii kuwaasaa laga reebay waad laakiin shakigooda waa ku jiray waa soo noqonnay 77 July 13 bilood mar laga joogo 12 bishii July 77 ayaa golaha dhexe oo xisbiga waxaa la keenay mooshin ama arrin dooda la keenay waxaa la yidhi mawduucu waxa weeye laga doodayaa dagaal in la galo dalalkii maqnaa si loo xoran lahaa dalkii maqnaa oo dalkii Soomaali galbeed yaa maalintaa ka soo jeediyey golaha ay dhantay madaxweynaha ka soo jeediyey Maxamed Siyaad waad doodkaadiisa ay ahayd doodii 7 nin oo anigu aan ku jiro ayaa diiday oo tiri inaan weerarno maahan Ethiopia maantay haddii intaan halkaa u gudbin Cumaro 7 inaad sheegtay adiga oo mid waxaan ka xasuustaa anigu waan ku jiray waxaan ninka Cabdiraxmaan Caydiid oo sabab lagu dilay mar daba ku dhintay ninka la yiraahdo haddii Ilaahay ku rooyahay Warsame Juguf nin la oran jiray haddii Ilaahay ku rooyahay Cabdullaahi Warsame nin la oran jiray Warsame Nuur haddii muxuu intaan ka xasuusto war adigu inaasan ka xasuusan karaa haddii haddaba dhegaystayaal aynu ka gudubno waxtarkii iyo aragtidii shisheeyaha waxay doontaba ha ahaatee dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray markii Soomaaliya lagu soo jabshay waxaa Soomaaliya u soo hoyday dhibaatooyin xoog leh oo ay ka soo kaban weyday dhibaatooyinkaasi waxay bilaabmeen intii uu dagaalku socdayba askartii Soomaaliya qabsatay bishii Oktoobar sanadkii 1969 olayaashii ugu waaweynaa ee ay bilowgii qaadeen waxa ka mid ahayd qabyaaladii oo la yidhi waa la aasay hase ahaatee waxa si cad boodhka looga tumay oo looga jafay oo la adeegsaday xilligii dagaalku socday oo ay noqotay in ree hebel iyo ree hebel la raadiyo waa kan General Samatar waqtiyadii dambe dagaalku uu soo kululaaday waxaa dhacday dagaal wuxuu u baahan yahay si joogto ah in loo supply gareeyo supplyga ma aha keliya hub iyo raashin iyo rasaas iyo maahe dadka xataa marka ragga waxbaa dhaawacmaya waxbaa dhimanaya furanta cusub baa maaragtay aad rabtaa inaad furto ama kugu furmaysa ciidan cusub baa rabtaa inaad geliso marka waxaa weeye si joogto ah in ciidan loo abaabulo oo ciidan loo dhiso ayuu keenaya dagaalka marka dagaalka muddooyinkii dambe bilooyinkii dambe ciidankii loo recruit gareen lahaayo la ciidameen lahaa way dhibaatay noqotay way adkaatay sidii lagu heli lahaa dadkii voluntarily inay ku soo xaadiraan oo degmooyinka iyo gobolada iyo intaas saraakiil baan u dirnay inta raggii degmooyinka maamulayay ayaan u xil saaray ciidan in la qoro waa dhibaatay noqotay in ciidan la helo arrintaa waxay keentay in odayaashii qabiiladii la adeegsado oo muddadii hore oo dhan yacni kacaanka uu ku socday fikrad ah warqabyaalada yacni aynu intaan daciifin karno aan daciifino yaanan qabyaalad buunbuuninin oo dhisin waxaase timid in la waayey dariiq kale lagu waayey ciidan in la helo odayaashii iyo maaudiin iyo dad noocaasa in la dirsado khaasan odayaasha marka ay noqotay reer hebelow waxaasaa laydinka rabaa ciidan reer hebelow waxaasaan keenaynaa annaga haddaan reer hebelnahay marka qabyaaladii baa markaa dib u soo noolaatay qabyaaladii baa xoog u soo noolaatay waa idiin muuqatay markaa dhibaatada ay keeni karto waqtigaas miya waa noo muuqatay calaa ayi xaal dagaal baa lagu jiray wax walba waxbaa ka daraaya annana waxaan u baahneen dagaalka inaan ciidan u helno waa hagaag cudurka qabyaaladu haddaba inuu dib u soo shacbo xilligii dagaalka sida uu sheegay General Samatar waxa isaguna ka markhaati furaya Cumar Salaad Cilmi oo sheegaya inay ahayd sababtii keentay in isaga lafahantiisa loo soo magacaabo inuu gudoomiye ka noqdo gobolkii Waqooyi Galbeed oo markaasi Hargeysa magaalo madaxda ay ahayd waxaana hadaladiisii ka mid ah marka salka markay marayso oo ciidamada Soomaaliyeed niyad jabeeno meelaha qaarkood
dib looga soo noqday sida dirir dhaboo kale laga soo baxay ayuu habeen ii yeeray maxamed siyaad wuxuu yidhi gobolkan la yidhaahdo waqooyi galbeed oo hargeysa caasimadda u tahay ayaa dagaalka ayuu ku wajahanaa dagaalka xooggiisu gobolkaas waxaa ku wajahan dirir dhabe iyo harar iyo jigjiga oo waddada loo maro ardisababana ah meelaha ugu muhiimsan etoobiyana ah dalkii soomaalidu sheegaysanaysna ah habeen buu ii yeero wuxuu yidhi dhulalka wax laga dhisay iyo dhulkaana waa adiga tegi jiray waa taqaanaa hargeysana horaad uga shaqayn jirtay gobolka waqooyi galbeed waxaan doonayaa inaad guddoomiyihii gobolkaas iyo dadkiibaa isqabsaday markaa dadkiibaa dagaalkii hakiyey bulshadu dagaalka haddii aan ku jirin ciidanku ma dagaalami karo marka inaad bedeshay guddoomiyaha gobolka oo aad halkaa tegtid yaa markaa guddoomiye ka hana waxaa jenaraal bilo rafla ah waxaan idhi bile waa saaxiibkay waanan aqaanaa waan wada shaqayn jirnay bile waan iniga karti badan marka ninkaas ma bedeli kare maadigadays oo waxa bile qaban waaya qaban kari maayo wuxuu yidhi adigaan kuu gartaye waa inaad meesha tagtaa meeshii waxaa markaas waa february 78 wey dagaalku markaas ilaa sanadkii hore julaay buu socday waana lagu daalayoo ciidamadu hore socod dibu socod mooyaane ma laha markaasuu magaaladii baan tegey dadkii baan la hadlay shiriyey hargeysa waxaan idhi maxaad bile ku diideen waad ula shaqayn weydeen bile intaasuu gobolka ka shaqaynayay wax badan buu ka qabtay waa nin wanaagsan buu ahaaye wax kale kuma diidine ciidamada soomaali galbeed oo dhankaa shishe ka soo jeeda ayaa la hubeeyey muxuu ahaa jabhadaha soomaali galbeed markaa bila ma hubeyn baana dowladdaa hubayse marka waxay qabaa'ilkii kale oo annaga qabaa'ilkayagii ahaa oo xuduudka ay wada yaaleen etoobiya gudaheeda ayaa hubkii lagu dhacay dadkii lagu laayey barkadihii looga dhacay dee intaasna uga xumaana bilana waxba kama qaban karuu yidhi oo wuxuu yidhi dowladda dhexaa waxaa waxaysay markaan arkay arrintii inay harig tahay baan madaxweynihii ku laabtay waxaan idhi dadka dhanka kan hargeysa qabaa'ilka ka tirsan oo dhinaca etoobiya dega ayagana waa in hubka la siiyaa qolada jabhadaha iyaguba waa jabhado oo etoobiya la dagaalamhayaan qabaa'ilka dadka kaleoo jabhadaha oo dhacayana waa isaga celinayaan oo dadku markay isku hub yihiin isku miisaaman mataqaanaa waa isdhawrayaan isku xadgudbi mahayaan wuu yeelayoo wuxuu yidhi hub uu qaybiyo sidii baan hubka jabhadahan ka dhiga waxaan etoobiya la dagaalamaysaan soomaliya la dagaalamaysaan sidii bay ku joogsatay dhicii iyo lagu kala joogsaday dadkiina markiiba sidii bay hawsha ku galeen haddaba dagaalkii 1977 markii soomaaliya lagu soo jabiyey oo uu go'ay xidhiidhkii ka dhexeeyey midowda soofiyeti tallaabo waxa u soo kordhayey soomaaliya iyo maraykanka xidhiidhkoodii oo ka dhashay istiraatiijiyadii maraykanku uu ka lahaa gacanka khaliijka kadib markii midowgii soofiyeti ay farageliyeen waddanka afghanistan sannadkii 1979 heshiis gaashaandhigga ayaa dhex maray labada dhinac sannadkii 1980 oo maraykanka loogu oggolaaday milatari ahaan inuu isticmaalo magaalada berbera maraykanku gargaar xoog ah ayay soomaaliya markaasi siiyeen sannadihii 1980 laakiin waxa uu ka cagajiiday inuu taageero milatari u siiyo maamulka maraykanku waxa kaleeto ay walaac ka muujiyeen xilliyadaasi xidhiidhkii soomaaliya iyo liibiya oo dib isna u soo noolaada barnaamijkuna maanta intaas haynoo joogo